رأيت النور يخرجه إلى الإنسان يفهمه بأن الحق يرفعه ورب العرش ينعمه. رأيت النور يخرجه إلى الإنسان يفهمه بأن الحق يرفعه ورب العرش ينعمه. قوي في حكايته وسام في رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فيقول الله عز وجل في سورة النحل الآية 37: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى walaalyaal aayaddan wuxuu inoogu cadaynayaa qorshaha iyo sunnihiisa uu addoomihiisa kula dhaqmo. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo cadaynayaa nolosha wanaagsan qofka mutaystay inuu helo, nolosha adduunyada ee wanaagsan iyo nolosha aakhiro ee wanaagsan qofka helaya ee mutaysanaya ayuu ilaahay inoo cadaynayaa subxaanahu watacaala. qaybta hore aayadda waxay inoo tilmaamaysaa wixii lagu helayay nolosha wanaagsan. qaybta dambena waxay inoo sheegaysaa noloshii wanaagsanayd wuxuu alla siinayay subxaanahu watacaala qofka inta hore xaqiijiya. allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala: man camila saalixan min dakarin aw untha, qofka shaqeeya camal wanaagsan lab iyo dhadig midkuu doonaba ha noqdo, wa huwa mu'min, isagoo weliba qofkaasi ah qof muslima oo mu'min oo ilaahay rumaysan subxaanahu watacaala. intaasi waa shardigii weeyi. waxa ka dambeeyana waxa weeyi wixii shardigaa ka dhalanayay. allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala: falanuxiyannahu xayaatan tayiba, waxaanu noolaysiinaynaa oo aanu noolaysiinaynaa buu allah yidhi subxaanahu watacaala nolol wanaagsan. xayaatada ilaahay subxaanahu watacaala uu nakireeyey oo macrifo ma aha, waa xayaata nakira si ay u caam yeesho oo ay u soo galaan jamiic alxayaa, nololaha oo dhan si ay u soo galaan buu ilaahay subxaanahu watacaala uu nakireeyey. waxaanu haddana sifeeyey noloshaasi nakirada ah ee aan hadda la fahmayn. allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala: waa xayaatan tayiba, waa nolol wanaagsan oo tayiba oo fiican weeye. taasi waa tii adduunyada. aakhira hadday tahay, allah subxaanahu watacaala wuxuu sheegay in ajrigooga uu siinayo mid ka wanaagsanna uu ilaahay ku abaalmarinayo waxay qabanayeen. walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun. waxaanu ku abaalinaynaa buu allah yidhi subxaanahu watacaala, waanu ku abaalinaynaa ajrigooga oo aanu siinaynaa wax ka wanaagsan wixii ay ahaayeen kuwii qabta. aayaddaasi kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala bay inoogu jirtaa. suuratu naxli aayadda 79 wuxuu ilaahay nagu barayaa subxaanahu watacaala waddada ugu habboon ee lagu helo sacaadada iyo nolosha wanaagsan, hadday tahay nolosha qalbiga laga dareemo iyo hadday tahay nolosha jidhka laga dareemo. noloshaasi oo isdaba socota min adduunyada laga bilaabo ilaa inta ilaahay laga hortegayo subxaanahu watacaala. waxaa haddaba qof kastoo muslima looga baahan yahay si uu nolosha wanaagsan u helo, nolosha wanaagsan ee adduun iyo aakhiraba si uu helo, waxaa qofka looga baahan yahay inuu xaqiijiyo shardiga aayadda u yaalla, inuu xaqiijiya laga rabaa. waa maxay? waa man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'min. waxa weeye markaynu soo xoorinno aliimaanu waalcamalu asaalix, iimaanka iyo camalka saalix ee wanaagsan ee ilaahay kuu dhoweynaya. ilaahay subxaanahu watacaala dhammaantiin hay naga dhigo kuwii xaqiijiya shardiga aayadda si aynu u helno nolosha wanaagsan ee qanaacada ku dhisan, ee raaxada ku dhisan,
aynu ku gaadhayno nolosha abadiyada ah ee sarmadiyada ah ee weligeedba daa'imaysa maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa ilaahayna inagu anfaco. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. نور الإحسان تجد حظا من الرضوان وترقى في ذرى الإحسان. قراءته تزودنا بطاقات تحررنا عن الأهواء تبعدنا من النيران تنقذنا عن الأهواء تبعدنا من النيران تنقذنا.